Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo dhowaanta socdaal ku jooga dalka Netherland ayaa magaalada Hague kula kulmay ardayda jaamacadda Leiden ee dalka Netherland, dhalinyarada Soomaalida ah ee degan dalkan Holland iyo arday kale oo iyagu ka socday Macalester College oo ku yaala dalkaasi Mareykanka. Aqoon isweydaarsigan ayaa diiradda lagu saarayay sida ay Soomaalidu ugu nool yihiin dalka Netherland, gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida ah ee ku soo barbaaray qurbaha. Professor Samatar iyo ardayda iyagu ka yimid dalkaasi Mareykanka ayaa si weyn uga dhageystay ardayda Soomaalida ah ee dalka Netherland fursadaha nolosha iyo sida ay Soomaalidu guud ahaanba ugu nool yihiin dal aanay asal ahaan ka soo jeedin hase yeeshee ay ku dhaqan yihiin. Waxaa si weyn loogu lafaguray aqoon isweydaarsigan oo ay sidoo kale ka soo qayb galeen dhalinyaro wax ka barata jaamacadda Leiden ee dalkan Holland iyo arday ka socotay Macalester College ee dalkaasi Mareykanka. Xaqiiqooyinka runta ah iyo nolosha dhabta ah ee Soomaalida Netherland waxaa sidoo kale si weyn uga qayb qaatay dooda dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya. Gabagabadii aqoon isweydaarsigan ayaa si weyn loogaga doodayay faa'iidooyinka iyo caqabadaha hortaagan bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalkan Holland, gaar ahaan mustaqbalka dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ku nool iyo kaalinta ay ku yeelan karaan bulshada ay ku dhex nool yihiin. Seminar soconaya bil ayaan halkan ka dhigaa jaamacadda Leiden University, marka tanna maanta tibay ka mid ahayd. Ardayda Soomaalida iyo kuwa aan Soomaalida ahayn maxaad ka wada hadlaysay? Waxaan ka wada hadlaynay maanta dadka Soomaalida ee soo degay Holland oo imika 30 kun ku dhow sida ay u nool yihiin iyo inay la qabsadeen wadankan, haddaanay la qabsan maxaa ka xun, hadday la qabsadeen maxaa u hagaagay. Waa tahay dhalinyarta waxaan filayaa su'aalo inay ku weydiinayeen, adigu qudhaaduna aad su'aalo badan weydiinayso. Su'aalihii aad weydiinaysay maxaa kaaga soo baxay? Waxaad arkaysaa dadka ardayda ay la socotay ee jaamacadda Leiden imika ku jira su'aalahay weydiiyeen kuwa adag bay ahaayeen oo aad u culus. laakiin waxaan filayaa panelkii rag labadii dumar ahaa iyo labadii rag ee aanu soo saacnay halkan keenay si wanaagsan bay uga jawaabeen intii taagtooda su'aalaha qaarkoodna aad iyo aad ayay jawaabtooda u wanaagsanayeen. dooduna waxay ahayd haddii aad Soomaali tihiin soo degay halkan mowduucu maxaad qabsateen, sidee tihiin, maxaa idinka maqan, dadkani aad la soo degteen sidee idinla macaamilaan, idinku sideed wax u fahamtaan, iyo xiriirka idinka haddaad Soomaali tihiin daj noqday idinka dhaxeeya idinka iyo xiriirka iyo Soomaaliya wadankii loo oran jiray ama Somaliland ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto ama dhulka kale Soomaalidu ay degan tahay laga yimaado ha noqoto, xiriirka idinka dhaxeeya muxuu yahay. arrimahaas ayaa la qaadaa dhigay dhalinyarada. marka waxaan ku leeyahay haddaad doonaysaan ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika degan inaad wax la qabataan waa tacab dheer iyo wada dheer baa lagu jiraa oo aan dhammaanayn muddo badan oo qaadanaysa 100 sanadood haddaan adaabadan ka badnayn muddo dheer bay qaadanaysaa in sida dhulkan oo kale la noqdo. marka waxaan kula talinayaa waxa weeye la xidhiidha dadkii wadanka deganaa, dhalinyaradii la xidhiidha, raayada isweydaarsada, aqoon iyo ilbaxnimo isweydaarsada iyo ficil ah dadkii Soomaaliyeed sida looga badbaadinayo maxaan ku rahay khaatimo xumadan haysata iyo abaarta haysata iyo cudurka haysta iyo jaahilnimada haysata iyo shaqo la'aanta haysata iyo cadawga meel walba ku cunaya Soomaali sida looga badbaadayo in dhalinyaradii Soomaaliyeed ee halkan deganeed iyo kuwii wadanka jooga ay iska fahmaan oo ka tashadaan oo deetana ka soo saaraan wadada ay marayaan ee ay ku jirto toobadkeenka iyo wax hagaajintu. taas la gudban bay la tahay.